waxyaabaha ugu muhiimsan ee qofka ganacsigiisa burburin kara runtii ama baabi'in kara waxa kamid ah hubin la'aanta baahida ganacsiga qofkan research ma muu sameynba qofku markuu business idea helo kama dhigna inuu ganacsi furi karo laakiin markaad fikrad ganacsi hesho waxa laga rabaa wax la yiraahdo market research inaad suuqii tagto baahidii diraasayso waxani ma jiraa haduu jiro suuqa ka sii jiray dadku sababta imka waxan waxa weeyaan ay uga iibsadaan adu waxaad kaga duwanaanayso yani inaad baahidii aad diraasayso marka waxyaabaha burburiya ama kiciya ganacsiyada waxa kamid ah hubin la'aanta baahida ganacsiga laba qorshe la'aan ama qorshe xumo qofkani inaanu wax qorshe oo cadba aanu ka lahayn arimaha kale burburiya waxa kamid ah isku duulfurka waxa weeyaan dhaqaalaha ganacsiga tusaalaha qofka laba meheradood buu leeyahay wuxuu leeyahay meherad iibisa electroniga iyo meherad iibisa waxa weeyaan waxa la yiraahdo cuntada marka labadii lacagood ayuu isdhex gelinayaa lacagtii electronic wuxuu ku simaal gelinayaa ama wax ka sii amaahinaya tii kale marka isdhex gelinta ama financial problem kaas uu sameynayo waxay sababaysaa in qofkii uu goodhow kala garan waayo xisaabaadkiisii iyo marka xisaab xumaduna waxay kamid tahay waxyaabaha burburiya